2024 qabyaaladii dawladii waxa ay galin aakhirana waa jirtaa ma sha Allah sababta la iigu soo daayay ee saylac loo siiyay gaalka Abiy Ahmed madaxweynaha Soomaaliya waxa ka codsanaa dadkeena meelageena ma hayno qabuurina qaar oo kala dunsan yihiin 2024 is a year of what ifs for democracy. This year's results ended in a strong showing. maalin kamid ah ay hooyadii inaad diiso direen marka laga yimaado inuu ahaa sanadihii ugu dhaqsaha badnaa ee ina soo mara haddana wuxuu la gaar ahaa dhacdooyin waaweyn sida dagaalo duufaano dhulgariiro doorashooyin shirqoollo iyo shilal diyaaradeed oo dhimasho fara badan sababay haddana si gaar ah marka laga yimaado dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan gudihiisa dhacay bal aan eegno waxa kugu yaabka badnaa ee aad sanadkan aragtid khaasatan gudaha dalkeena Soomaaliya maxaa kugu yaab badnaa sanadkan tagay ee 2024 ma xasuusataa wixii dhacay intii lagu guda jiray sanadkaas aniga ka aadam ahaan waxa igu yaabka badnaa wuxuu ahaa 5 dhacdo oo dhacay sanadka gudihiisa gabadhii tiray waxaan ku farxay geerida ninkayga maantii igu farxada badnayd waxay maanta ninkaygu dhintay bismillaah magacaygu waa Asma Cabdi maantii igu farxada badnayd waxay maanta ninkaygu dhintay sababtoo awgeed aad baan isugu xumayn saas laajkeed farxad bay ahayd maalinta dhintay may aniga farxad bay ahayd laakiin dadkiisa ma ogi waxay u ahayd maxaa ku dabaaldegay waa farxad waa hada geeri yaa badana oo geerina goorma lagu farxaa mise gaal miyuu ahaa gaalba geeriisa lagu farxaaye labo hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu yiri Xamza Cabdi Barre naartu maxay Soomaalidu u jecel yihiin waxaan runtii aan isweydiiyay dadka Soomaaliyeed maxay ugu xiiso qabaan inay naar galaan xiisaha inta leeg ee dad Soomaali u qabto inay jahannamo aadaan maxay tahay ilaan abwaankii weynaa ee Sultan Timcade Abdullaahi Sultan Timcade wuxuu sheegay isdilkan markuu ka hadlaayay gabaygiisii dugsi mala qabyaaday waxay dumisay mooyaan carabtu waxay ku maamahdaa naasu ala diini mulukihim dadku waxay ku daydaan boqoradooda macna dadka boqorada ay madaxda u dhaqmaan bay dadkana shacabka u dhaqmanayo isaga ayaaba u horkacayo Soomaalidu naarta sababtoodan ku sheegana waa in isaga iyo madaxda Soomaaliyeed ay dastuur ka doortaan kitaabka Rabbi oo umada gaarsiin lahaa ilaa birrin wa amaan saddex dilkii Sayyid Ali uu u geystay xaaskiisa Sahara afar nin qaawan oo dagaalamayo kaaga daran oo u dagaalamaya dagaal beeleed weli caalamka laguma hayo qof qaawan oo dagaalamaya ilaa waxa laga helaa Soomaalida shan dawlad islaam inay dhalato ayaa caalamka idil ka cawaadayaan kuna tilmaamayaan in arrinkaas uu yahay yacni irhabnimo terrorisnimo saddexdii wasiir ee hadlay midka Ethiopia iyo madaxweynihii Imaaraadka iyo midka Israa'iil u hadlay inta waxay dhaheen dawlad islaam inay dhalatay laga baqaya Abiy Ahmed wuxuu yiri Soomaaliya al-shabaab inay la wareegtayaan ka baqaynaa oo xalka Soomaaliya uu noqdo sida midka Afghanistan macnaha in dawlad islaam ay ka dhalato Maxamed bin Zayed wuxuu yiri Suuriya markii Dimashq la qabsaday Mareykanku farin u daray wuxuu dhahay Mareykanku waa inuusan aqoonsanin dawladan dhalan doonta sababtoo ah waxay aasayaan dawlad islaam ah midka Israa'iilna wuxuu yiri dawladda hadda ka dhalatay Suuriya ma aqoonsanin sababtoo ah waa dawlad islaami ah oo aan ahayn kunyar socod maxna garan kartaa yani dimuqraadi ma aha adiga maxaa kugu yaab ka badnaa qaybta hoose ee comment inoogu reeb assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh